ugu horreyn waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaan naga daawanaysa waa Barasho Channel. Fadlan channelka xaqiisa mariya oo subscribe saara, sidoo kale kambalaalka furta waa haddii aad ku cusub tihiin videogana xaqiisa sidoo kale mariya, like gareeya. waxaa ugu dambeyntii mucjiso xun la tusay gabadhii cayday Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam iyadoo kala kulantay falcelin xun Soomaalida. sidoo kale mar ay live soo gashay ayaa waxa ay sheegtay in iyada la tusay habeen kasta marka ay seexato iyadoo ay masas cunayaan. gabadhan ayaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ka sheegtay wax aad u xun, fal aad xun oo la yaabo, isla markaana ay Soomaalida badankeedu ay la yaabaan. gabadhan ayaa social media caan ka noqotay wixii ka dambeeyay 2016 ilaa 2020, iyadoo marba mar ka dambeysa kasii kordhayeen dadka ku xidhan. gabadhan ayaa sheegta inay waalan tahay ama ay xanuunsanayso ama aysan dariif ahayn, balse baaritaan kadib in la baaray ayaa waxaa la soo ogaaday inaysan gabadhan waalayn, balse iyadoo qaawan ay soo gasho markasta live ama video ay iska soo duubto ayna soo upload garayso YouTube ay soo geliso. gabadhan ayaan waalnayn ee caadi ah, balse ku qaraabata diinta islaamka inay wax ka sheegto ama ambiyada calayhi salaatu wasalaam inay wax ka sheegto. haddaba daawade sidaad u aragtaa gabadhaas caynta nebiga cayday? horta culimada Soomaaliyeed waxay ka qabaan qofka diinta islaamka ama Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam caaya inuu diinta islaamka ka baxay, isla markaana ay bannaan tahay in la khaarijiyo ama la dhaafiyo dhammaan dunidaba. ka baaritaan kadib ay soo baadheen rag Soomaali ah ayaa waxa la ogaaday in ay ku qaraabato diinta, isla markaana rag cadaani ay siiyaan lacag, sidaa darteed ay yidhaahdaan cay oo wax ka sheeg diinta islaamka. gabadhan ayaa joogta dalka Mareykanka, magaalada inkastoo la garanayn balse joogta dalkaasi Mareykanka, cariga dalka Mareykanka. gabadhan ayaa sanadadii u dambeeyayba joogtay dalka Mareykanka. gabadhan waa gabadh aad u weyn, Maama Malyuun ayay la baxday. waxay tahay anagoo garamayno, balse Maama Malyuun ayay la baxday. haddaba daawada fikirkaaga ka cabir, commentiga hoose noogu reeb fikirka aad ka qabto in Maama Malyuun ay ku gaftay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, ay sheegtayna mar ay live soo gashay waxaan afkaa la soo mari karin. hadalladeedu waa hadallo aad u qalqallafsan, diinta islaamka ay ku ganayso. markaa daawade commentiga noogu reeb. intaan casharka la kulmi doono anigoo Barasho Channel. fadlan videoga gabadhan daawadayaal, haddii aad doonaysaan taariikhdeeda oo dhammaystiran commentiga ayaad noogu reebi doontaan. waa haddii aad doonaysaan taariikhdeeda oo dhammaystiran, xagga ku dhalatay, si soo barbaartay, si u weynaatay, inkasta imika inay live taagantay ama ay gabowday, balse taariikhda laga hayaa oo aad u kooban ayaa waxay tahay inay iyadu inay kusoo barbaartay magaalada Muqdisho, balse ay markii dambe tagtay xaggaas iyo dalka Mareykanka. sidoo kale ay xagga ku weynaatay, ay ku gabowday, imikana ay joogto, ay soo caytinto iyadoo qaawan ay live soo gasho, videoyada YouTube ka soo dhigto, sidoo kale Facebook aad ku aragtaan videoyadeeda. sidoo kale gabadhan ayaa waxay 2016 ka soo caan baxday xaggan iyo baraha bulshada iyadoo videoyada soo gasha. daawadayaal, haddii aad wax kale sii doonaysaan commentiga noogu reeba.